sideed ha ka cabsan guuldaro. Guuldarada waa casharka ugu muhiimsan ee lagu garto wadada loo maro guusha, sababta oo ah marka aad guuldareysato waxaad baranaysaa qaladkii aad ku guuldareysatay, kadibna qorshe cusub ayaad la imaanaysaa taas oo guul ku gaarsiinaysa. Guuldarada ayaa ku baraysa wadada aad ku guuleysan lahayd. Guuldaradu ma ahan in aad kuftid, balse waa in aad diidid in aad kor u kacdid. Wadooyinka loo maro guusha. Hadaf. Marka aad samaysato hadafyo, waxay noloshaada noqonaysaa mid dhadhan leh, tartan leh oo farxad leh. Dhacdooyin badanna ay ka buuxaan oo ku dhiirigelinaya. Cilmi baaris la sameeyay ayaa waxa lagu ogaaday in dadka leh hadafyo isla markaasna u dagaalama hadafyadooda ay ka farxad badan yihiin kuwa aan lahayn wax hadaf ah. Inaad ogaato hadafyadaada iyo waxa aad rabto noloshaada waa mid aad u fudud. Marka aad ogaato waxa aadan rabin noloshaada ay jeclaan lahayd in aad bedesho. Haddii aad tahay qof badan stress iyo walwal badan, waxa dhawa inaad rabto inaad ku noolaato nolol bila stress ah. Albert Einstein wuxuu yiri, haddii aad doonaysid in aad nolol farxad leh ku noolaato, noloshaada ku xir himilo iyo yool, oo ha ku xiran shakhsiyad iyo wax kale. Noloshaada markaad macno u yeesho ayay macaan yeelataa. 2. Go'aan dhab ah la imow. Dhammaan dadkii noloshan guul ka gaaray waxa ay ahaayeen kuwo ku adag waxa ay rabaan, kuna qanacsan fikirkooda nololeed. Xusuuso dhacdada cajiibka ahayd ee Nabiga sallallahu alayhi wasallam markii lagu dhahay iska dhaaf waxaan aad wadid, aan ku siina waxaad rabtid sida madaxtinimo, xoolo, haween qurux badan. Markaas ayuu ugu jawaabay, wallaahi haddii dayax iyo cadceedda midba gacanta la soo geliyo inaan ka tagayn waxa aan ku taaganahay. 3. Rumayn. Awooddaada waa wax aad aaminsan tahay. Haddii aad aaminsan tahay in aad himiladaada gaari karto, waa runta oo waad gaari kartaa. Haddii aad aaminsan tahay in aadan gaari karin, waa runta oo ma gaari kartid. Sababtoo ah labadaba adiga ayaa isxugmiyay. Waxaad aamintaa in aad samayn karto. Si aynu u guuleysano, ugu horreyn waa in aynu aaminaa in aynu guuleysan karno. 4. La imow qorshe nidaamsan oo qoran. Marka aad rabtid in aad samayso hawl, waxaa muhiim ah in aad qorshaysatid sida aad u samayn lahayd iyo waqtiga aad ku samayn lahayd hawshaada. Warqad ku dul qor dhammaan qorshahaaga si nidaamsan. Tusaale, haddii uu yahay waxa aad doonayso in aad 10 sano gudahood ku gaarto, qor qorshaha 10 sano ee soo socda ee aad ku gaarayso halka aad doonayso. Kadibna ku xiji 5 sano ee soo socota waxa aad doonayso in aad xaqiijiso ee u adeegaya hadafkaada guud. Kadibna qor qorshahaaga sanadlaha ah. Kadibna ku xiji 6 bilood ilaa aad ka soo gaarto saacada aad hadda joogto. Haddii aad ku guuldareysato in aad qorshe samaysato, waxaad qorshaysatay guuldaro. 5. La imow ficil. Waxa kaliya ee u dhaxeeya hadafkaaga iyo in ay rumowdo waa in aad ficil la timaadid. Hadaf aan ficil lahayn waa geed aan waxba soo saarin. Marna ha sugin in ay ku timaado guusha haddii aadan dhaqaaq la imaanin. Marka aan dadaalno ayaa Ilaahay inoo fududeeyaa waxaan ku dadaalnay. 6. Adkaysi iyo sabar badan. Ma jiro qof hal maalin ku gaaray nolosha uu gaaray, laakiin qof kasta wuxuu horay waqti dheer isaga oo muujinaya samir iyo dulqaad xad dhaaf ah. Guusha waxay u baahan tahay adkaysi badan. Adkaysiga waa in aadan waxba u ogolaanin inay ka hor istaagaan waxaad doonayso inaad qabato. Marka aad bilowdo ilaa ay ka noqoto wax xaqiiq ah. 7. Iskaashi. Dadka guuleysta waxa ay si fiican u kaashadaan oo ula tashadaan dadka ku xeeran sida xaasaskooda, saaxiibadooda iyo dadka ay hiigsadaan. 8. Ha ka cabsan guuldaro. Guuldarada waa casharka ugu muhiimsan ee lagu garto wadada loo maro guusha, sababta oo ah marka aad guuldareysato waxaad baranaysaa qaladkii aad ku guuldareysatay, kadibna qorshe cusub ayaad la imaanaysaa taas oo guul ku gaarsiinaysa. Guuldarada ayaa ku baraysa wadada aad ku guuleysan lahayd. Guuldaradu ma ahan in aad kuftid, balse waa in aad diidid in aad kor u kacdid.